دي الله ده جناح سير عابو كورونا فيروس إنه كسامي شن يتمكن أو دولار أو دقيقة أيا قطالة كفاية سو paycheck protection program PPP 1 تدقيقات السنة كي هراء عفيسك أيا أفرن فلان عفيسك بوحية paycheck protection program 2 أو سنة كان قاطي ولي عفيسك لما فرن لكن اسكو ديارية عفيسك حريسان لباتني شن قبل أيا جوجينيو لعاك صدق بقولوا دور عن employment benefit weekly لصيو تدك عن employment قات غيرت من البعض جوكتان ومحمد فارح وهذه سلام يا فضلا channel كي يوتيوب محمد فارح سبسكرايب قري صاحب لنا سيدو كله فيسبوك صاحب لنا سبسكرايب قري لنا وذاك فيديو كان أهل كاجا يا أصحاب هذا أو قد بدأ إني هايو paycheck protection program تدك قاتي السنة كي هوري 2020 أو لعقتي اسمه PPP ده هاد ويفرنتها عفيس كذا هدي ماشي هتكقارتي أو كلية يعني هتكحرين كرتا عفيس كذا وحنا لا ده هيدو ديت لكن هدي أتقارتي paycheck protection program فضل بوحي financial tech company ذاك قارتي أما بنجياش هو ذاك قارتي بوحي تدكي بوحيها يعني كجرا الله سير نقاطي لعكس إنه ولا فيه زيرو أيا اللي قديم هذا تكقارتي PayPal Cross River and Blue Vine iyo financial tech company yal badan fadlan buuxiye ka faa'iideysta ama Chase Bank, Huntington, US Bank, Bank of America dhamaan way furu yihiin fadlan buuxiye qaasatan 150 kun ka yar yahay inaad qaaratay waxa xuquuq la talin lahaa inaad buuxisid application kana saaid muu dibadna paycheck protection program 2 dadkii qaatay sanadkan wali ayada cafis lama furin 6 bilood ka bacdi ama 24 asbuuc ka bacdi ayaa cafis kala furay laakiin isku diyaari ayaa la yiri hadaad qaadato lacagtaas paycheck protection program 2 oo small business kaaga aad u qaadatay marka isku diyaariya cafiska markii la fursay documentation la idinka rabo aad u soo dhigtaan paycheck protection program 3 ma laga yaabaa inay imaadii in kale su'aalaha kale soo weydiin dadka badan ku xawaay midaas sida ogtiin May 31 ayay joojiyay ama dhamaatay lacagtii ka dhamaatay SPA-da lacagta la siinay small business ka daba waxa codsi loo diray Congress أقل خاصية أقل كسرة إن third paycheck protection program كينان ولي عفيسكي وحاولوا بجرانيو lobbyist groups يو business ديال بدن ولي Congress كا مو صنصاب بندقين إنه small business كالعكلة أو paycheck protection program third وصينيو لكن فكرة ولا رياقين وحنلفيله يا إن yes or no ذي مرة الشيء دونان هدي أي شيء كنا وذي لسه قد من دونان لبعتني إيشان قبل أوهايو كجرتو ayaa joojiyay lacagta la siiyay $300 unemployment benefit weekly Ohio waxay joojinaysaa 26 Sabtidan soo socoto ayaa ugu dambeysay $300 PUA-da pandemic unemployment federal ka imaada la siinayo September 6 ayay dhici lahayd laakiin governorkeena Ohio diwaan wuxuu yiri dadkii ay leeyahay ka dhigta lacagtan shirkadooyinkan waxay rabaan shaqaaleysiistaan sahzaraadad lacagta waxaan u celinayaa $2 bilyan federaalka mar wada dadkan waa laga jarayaa lacagta state-ka uu siiya unemployment benefit-ka inkastoo yar tahay way soconaysaa shirkadooyin faran badan ayaa cabday oo dhaheen dadkii shaqo ma rabaan guryaha ayay joogaan mana rabaan inay noo shaqeeyaan maadaama ay weegi qaataan 200 unemployment benefit qaataan waana run Ohio unemployment waa 5.8% unemployment hoos soo dhacaysa shirkadooyinka waxay sheegeen 300,000 oo qof oo shaqaalaha inay u baahan yihiin Ohio laakiin dadkii ay guryaha joogaan waxaan dadka waa barinaa noo shaqeeyaan ana waana wacnaa mana rabaan inay noo imaadaan sidoo kale 25 gobol kale sidoo kale way hadii fadlan barnaamijkan la joojiyo oo PUA-da lacagta state ka qaadanayso yartahay waxaan kuula talin lahaa aniga inaad shaqada ku laabatid oo aad shaqeysid si mataqaana aad lacag fiican u soo bishid oo ay uma fadhin kartid lacagtan kaliya state-ka uu bixinayo unemployment rate Mareykan dhan waa 5% waxa wada ganacsiga Mareykan kor u soo kacayo sidii awal caabuq laga soo baxayo maadaama dad badan la talaalay shirkadooyinkii warhaysooday ay furmayaan opportunity faraha badnaana uu soo laabanayo recovery rasmi ah dhaqaalaha Mareykan ma gelin laakiin jidkii ayuu saaran yahay shaqooyin waa jiraan ha laga faa'iideysto waliba shaqooyin lacag fiican bixinayo ugu dambeyn qodobka ugu dambeeyo $15,000 ayaa lagu siinayaa haddii aad leedahay small business caabuqaagana coronavirusna uu saameeyay ganacsigaaga haddaba sidee lagu siinayaa laba criteria ugu muhiimsan sababta lagu siinayo
وين business كا كيالا low income community neighborhood zip code كاي وين كيالا كو لابو وإن جناعسي جاجا وقصاري بقول كيبا صدن إيا بقول كيبا كونتون بقول كيبا صدن هدو جناعسي جاجا قصاري 2020 حلقة كورونا فيروس جري وحاول قصوني $8,000 مركي لابو برديو tax return كاجي 2019 هدي بقول كيبا كونتون وقصاري جناعسي جاجا 2020 markii loo barbardhigay tax return-ka 2019 $5,000 ayaa lagu darayaa $15,000 ayaa la siinayaa small business-kaaga labada tax return labada gross ayaa la isku barbardhigayaa waana qasab sida lacagtan ku heshid inaad qasaartay 2020 haddii aad 2020 qasaarin lacagtan ma lihid haddaad 2020 2019 oo lacag fara badan aad suubisay lacagtan ma lihid fadlan ka faa'iideysta waxaa taalo sanduuqa lacagta taalo waxay tahay 28 bilyan dhibic 5 oo dollar waxay u taalaa targeted advance oo 10 kuna 4.5 bilyan dollar waxay u taalaa supplemental grantiga ah oo 5 kun oo dollar waxa la SBA waxay sheegtay lacagta inay taali doonto small business kan loogu talagalay ilaa sanadkan dhamaadkeedana iska aali doonto loona baahan yahay small business ka ah ama taraagla ahaaw ama taksiila ahaaw ama keliga ahaaw ama 300 shaqaale ah oo homework daycare lahaaw ka faa'iideysta ama muqaayad lahaaw ka faa'iideysta lacagtan taalo si aad u heshaan mataqaana $15,000 oo ganacsigiina kor ugu qaadaan kirada iskaga bixisaan haddii aad u baahan tahay ugu dambeyntii cid ka caawiso SBA-da $15,000 iyo Paycheck Protection Program Forgiveness-ka cid ka caawiso xafiis ayaan waxaan ku leeyahay Banaadir Mall 31 fadlan igu imaw aniga ayaa ka caawin doona meel walba joogtaana waa aniga maxaan faarax oo idin leh videogan la wadaag asxaabta saaxiibahaaga ah ehelkaaga waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo